السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiib yaal soo dhawaada. Waxaan rabnaa lacagta euro USD inaan analysekeeda iskala soo bilowno from zero ilaa aan fiirinayno in entry leedahay iyo in kale maanta. Bishu ay tahay 13 February 2025 maalin khamiis ah, suuquna uu furan yahay. Okay, analysekeena saaxiib yaal waxaan kasoo bilaabaynaa 1 hour ayaan kasoo bilaabaynaa inaga oo trendiga suuqa jihaynayna ama suuqu ogaanayna meesha uu u socdo ama jihada uu u socdo. Tuulalkeennii aynu ku samaysan jirnay jihada suuqa ku qiyaasan jirnay ayaynu isticmaalaynaa. Halkaasoo kale suuqa muxuu u baxay intaan lugtaan hadda moosku saaran yahay. Xagee suuqu u socdaa? Jihadee u socdaa? Wuxuu u socdaa jihada bayda ama uptrend ayuu u socdaa. Sidaa darteed maxaan leeyahay socday high and higher low ayuu ku socday suuqaani. Waaye high lowgiisii mee waa kana siinayaa si uusan waqti badan inuu ka qaadan. Ilaa from scratch ayaan ka bilaabi doonaa meesha u hooseysa. Qofkii casharkan soo aada waxaa hubaala inuu yahay qof nasiib leh. Istiraatiijiyadda aan ku trade garayno istiraatiijiyadda low and order-na waa istiraatiijiyadda ugu sal adag ee suuqan lagaga macaashi karo. Qofkii marka weli aanay u fadhiin ama weli aan meel qabsan, waxaan ku boorinayaa istiraatiijiyaddan low and order strategy inuu ku dhego oo qabsado. Waaye full body candle waa ka kormaray, sidaa darteed sharciga haynimada waa siinaynaa, waa boobsiinayaa, raalli ahaada. Okay, ilaa hadda suuqu muxuu ku socdaa? High and high low buu ku socdaa. Waaye high-gu sarreeyay mee waa kaas. Waaye kan iyo kana high noqonaya sababtoo ah kani full body candle kama kormarin, wiig kaliya ayaa ka kormaray. Waaye casharo ayaan kasoo wadnaa waxaas oo dhan. Haddii aad u baahan tahay inaad waxa weeye fursadahan ka faa'iidaysatid oo aad istiraatiijiyaddan low and order si fiican u baratidna, waad ku xirnaan kartaa channelkan, subscribe ayaa oran kartaa. Telegramka description-ka yaallo oo aan hubo inaad wax badan ka faa'iidi doontidna waa isagana waad ka faa'iidaysan kartaa insha Allah. Waad ku soo biiri kartaa, waa free 100%. Dhalinyarada suuqan ku wareersan ayaan ugu talagalnay in waxa weeye ay ka faa'iidaystaan. Waaye okay, waxa hadda inoo muuqda maxaa weeye in suuqii uptrend-ka ku socday ama high low ku socday in la jebiyey ayaa ku muuqata. Xagee laga jebiyey? Ila soco, si fiican ila soco, si fiican ila soco. Nasiib baad leedahay haddaa casharkan daawanaysid. Haddii istiraatiijiyada kale aad ku wareertana nasiib baad leedahay, sababtoo istiraatiijiyaddan waa istiraatiijiyadda aan hubo in waxa weeye ay aad si 100% waxa weeye wax badan uga faa'iidi doontid. Waaye maxaa lagu soo jebiyey 2 dhaqaaq? Lower high, lower low. Soo ma aragtid? Weli lama jebin, weli lama jebin. Ila soco, weli lama jebin. Waaye lower high buu kani ahaa, muxuu isu bedelay? Full body candle baa ka kormay, sidaa darteed high noqonayaa. High buu noqonayaa. Oo muxuu sameeyey high-ganu?
lower high-gii hore uu jabiyey, yacni uptrend ayuu suuqii u kala bedelay. Isla markiibana waa lasoo kala wareejiyey saa u jeedid. Suuqani muxuu ahaa? Lower low, lower high, lower high. Isla markiiba kan oo aan noqon weli aan qaadan sharcigii downtrendnimada oo aanan jebin higher low-gii hore ayaa la jebiyey. Saa darteed fake break oo kale bay halkan noqonaysaa. Fake break out ayay noqonaysaa. Fake break out ayay noqonaysaa. Ha ku caajisin waxa ugu muhiimsan ee la rabo inaad qabatid waxaan weeye. Waqti badan ha kugu qaadato. Ugu dambeyn inaad qabatid ayaa muhiim ah. Haddii aad ka caajisaysid inaad saacado badan chatka la sheekaysatidna suuqan wax badan kama keenaysid. Xaqiiqo wey. Suuqan wax badan kama keenaysid. Lacagtaanaan rabnaa inaan jahayno 2025 saaxiibayaal waa waqti aad fursado badan aan haysano. Casrigan aan noolahay hooyayaasheen iyo aabayaasheen ma haysan fursadaha aan haysano. Lower low-gii waa kaas marka. Kanaa jebiyey marka. Lower low, lower high, lower low, lower high. Intaasoo dhammi ma jebin. Suuqii uptrendka markii hore ii socday. Laakiin lugtaan dheer oo waxa weeye gaabkan wadata ayaa ku guuleysatay inay jebiso. Lower low. Halkaan markaan marayo saaxiibayaal waxa ii muuqata in suuqu uu yahay downtrend. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Miyaa laga kormaray lower high-gii u dambeeyey? Maya lagama kormarin. Wax full body candle ah oo ka kormaray ma arko. Waana zoonka iigu muhiimsan ee suuqa ii jahayn doona. Zoonka iigu muhiimsan ee suuqa ii jahayn doonaan bias-kayga ka qaadan doono. Calaamadii marka halkaas. Break-ga markaad wiigga candle-ka afka u saarto waxaa kuu muuqanaysa inaan weli la jebin. Haddii la jebiyo waxaa kuu kala wareegaysa jihada suuqa oo markaa inaga directional bias-kan waxaa la jirsan doonaa inaan fursadaha ka raadsano dhinaca buy ama bullishka aan ka raadsano. Laakiin hadda istiraatiijiyadeenna iyo low and order-kan ku shaqaynayno muxuu ina farayaa haddaan la jebin lower high-gii u dambeeyey suuqu weli wuxuu ahaanayaa bearish oo sell ayaanu la macaamilayaa. Muxuu noqonayaa marka waxani suuqan aad arkaysid ee noqday ee pullback-tan muddada ku raftay wuxuu ii noqonayaa counter trend-kayga ayuu ii noqonayaa. Pullback-tayda ayuu ii noqonayaa. Correction-kayga ayuu ii noqonayaa. Saasaan ula macaamilayaa. Iyadana maxaan fiirinayaa marka 15 minute-kaan u degayaa. 15 minute-ka u dego. 15 minute-kaan u dego. Waay. 15 minute-ka markaa u degtid maxaa kuu muuqanaya? 15 minute-ka markaa u degtid maxaa kuu muuqanaya? In lagu socday 15 minute uptrend in lagu soconayay. Waay. Low and high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low. Maxaa la soo jebiyey marka halkaa laga soo jebiyey? Waxaa laga soo jebiyey 15 minute uptrend-kaygii. Fursad baa marka halkaa ku jirtay oo marka suuqu counter trend-kiina halkan ugu jiray. Suuqu marka uu ku noqdo suuqu marka uu halkan ku noqdo ayaa fursad sell la soo qaadanayay. Waana qaadanay. Waana aragteen casharadii hore. High high lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Weli lama jebin lower high and high high baan ka wadaa high low, higher high. Kaana waa la jebiyey. U fiirso marka. Wax yar u fiirso marka. Adoo raalli ah. Meesha markii ugu horreysay laga jebiyey suuqa waa xaggee? Suuqan ku socday high 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 low-ga oo uptrend-ka ahaa halkaasaa laga jebiyey. Higher low-giisii u dambeeyey lugtaanaa fatuuday oo jebisay. Maxay ku soo socotay marka suuqu ku soo socday 15 minute
weli lama jebin macnaha higher time frame directionkii 1 hourka aan kusoo dhisnay oo selka ahayd lama jebin. waxaan hadda dhisayno waxa weeye 15 minute uptrend counter trend ka rabnaa inaan qiimano fursadaas ay u dhalanayaan waaya lower low lower high waa selkii ama beerishkii soo jebiyey counter trend ka halkaa soo jebiyey waaya waaya lower low lower high lower low lower high lower low halkaa markay maraysay ba isagii laba dhaqaaq oo uptrend lagu jebiyey oo 15 minute ah high high higher low high high kanaa jebiyey marka isagana waa lay jebiyey markaasaa u kala furfuratid suuqa wuxuu kuu noqonayaa baasto kuu noqonayaa baasto ma garatay effort iyo dadaal buu u baahan yahay wax kale uma baahna way suuqan marka mar kasta oo counter trend la jebiyo inaga mar kasta oo counter trend la jebiyo waxaan dhisanaynaa fursad scenario wana ayaan dhisanaynaa way counter halkan xagee inoogu jiray liquidity halkee ku jirtay liquidity clear halkaa ku jirtay ujeedaa maxaan leeyahay marka sorry liquidity-ga halkaanu iga muuqdaa way waa liquidity clear liquidity-gaaga maxaa lagu jebiyey laba dhaqaaqday waa lasoo dhaqaaqay waa lagu dulnastay waa lagu dhuftay misena waa la mitigeedgareeyey manipulation moveskii baa dhacay waa la jahwareeriyey dadkii waxa weye retail traderska institutional trading baan waxaan wada suuqan ku ciyaaraya say rabaan ka yeelaya haddii iyaga aad la qaraabato xirfaddas iyaga u qaraabtaan aad taqaano marka waxa weeye suuqan khasaarahaagu aad u yaraanaya guulaha waaweyn oo la taaban karana waa ka gaaraysaa day maxaa lagu jabiyey day dhaqaaq waa la dhaqaaqay waa lagu dul nastay dad badan oo sellersa halkaa raba inay suuqa ka galaan marka halkan waa jiha adag dhowr jeer laga noqday meel day halka waa laga noqday bay dhihi halka waa laga noqday halka waa laga noqday sidaa darteed halkan waa laga noqonayaa bay aaminsanay si lahaan bay u galeen lacagtooda halka lagu ururiyey marka accumulation and distribution phase waa lagu ururiyey lacagtoodii kadibna bum waa lagaga dhuftay kadibna jihadii saxdaa loo socday waa halka fursad baa laga soo qaatay marka maalintii dhoweydna waa ka qaadanay waana u wada jeedeen dhammaanteen okay fursad biirisha halkaa ka soo qaadanay oo caddaana waxaanoo dhan baa waxay noo ahayd meeshaynu fursadda ka qaadanayno way waxaasoo dhan ma rabin innaga all the way 124 biib ayay dhaqaaqday all the way 124 biib ayay fursaddan dhaqaaqday imagine okay hadda maxaa ii xala marka marka haddii dhaqaaqii soo dhaqaaqay isagii dib loo cunay ya waxaan sugayaa bullish up trendkani inuu iga jabo oo halkaa ka jabo day calaamadan digniinta baa dhiganaysaa lacagtan aanan iskaraynayno euro iyo isdhiw wey waa ujeedaan baan u malaynaya calaamadanaa dhiganaysaa halkaas marka alarmigaasaan la soconaya day halkaasi hadda ii jabto oo counter trendkani uu jabniin muujiyo halkaas waxaan ka raadinaya liquidity-gaygii waxa ii dhan baa ka raadsanaya fursad fiican baan halkaa kasoo qaadanayna insha allah taasi way dhici weyday haddii ay dhici weydo waxaan sugayaa in lower high-gaygan la jabiyo oo jihadii suuqa isu kay bedesho oo uu ii noqdo suuq aan fursado bay a ka raadsado laakiin hadda maxaa la jiraa sellerska ayaa la jiraa sababtoo ah higher time frame directional biaskeeni waa down trend weye ama waa bearish market weye okay fursaddan marka aan qaadanaynay ee aan kasoo trade garaynay halkaas ilaa iyo waxa weeye aan soo qaadanay halkan markay jebinaysay aan soo qaadanay fursadda noqodkii lagu noqday baan soo qaadanay halkan waa jebistii ay jebisay markay soo jebisay counter trend ee ku noqotay intrigigii baan soo qaatay waaya fursaddan markaan soo qaadanaynay annaga all the way ilaa halkaasaan soo qaadanay 42 biba 42 bib keliya ayaan soo qaadanay sababtoo maxaan rabnaa waxay ku beegneyd baan u malaynayaa jimcihii hore ayay ku beegneyd waa sax jimcihii hore ay ku beegneyd haddaan fiiriyo waa kaa friday waa kaas waa ujeedaa baan u malaynayaa friday
okay, jimcadii hore waxaan 40 habib u qaadanay yacni sabti baa soo gelaysay. Ma rabno annaga marka ma nihin waxa weeye waxaan nahay intraday traders baan nahay. Yacni maalintaasaan suuqa ku kala baxnaa. 40 habib markaan qaadanay baa waxa dhacday sabtidii waa xirnaa suuqu, axaddii waa xirnaa, isniintii suuqa markii la furay. Isniintii suuqii markuu furmay baan 5 minute-ka u degnay. Waxaan rabnaa inaan fursaddii aan saadaalinay inaan sii raacne 5 minute-kaan u degnay. Halkana waxaan ka helnay marka fursad iyaduna cajiiba. Halkana waxaan ka helnay fursad iyaduna cajiiba. Meelahan waxaan ka helnay fursad cajiiba. Dhag waa nala ku noqday dhaqaaq fiican iyaduna ilaa waxa weeye 30 bib baan soo qaadanay. 30 bib ayaan soo qaadanay. Marka saaxiibayaal suuqaani waa easy weeye. Waan idiin sheegay casrigii u fiicnaa ilaahay de kolley ina abuuri lahaa ayaan ku soo beeganay. Qofkii yiraahdo marka waddanka Soomaaliya oo kale dhalinyarada joogto shaqo male oo bilaa camal yacni no excuse taas ku noqon mayso excuse. If you want to be successful haddii aad rabto inaad guulaysatid you have to pay the price. Waa inaad guusha qiimaheeda bixisaa. Haddii aadan guusha qiimaheeda bixinin dee ma guulaysanaysid weeye micnaha. Marka saaxiibayaal hadda waa aragtaan qulqulka suuqu wuxuu u soo jihaysan yahay inuu jabiyo counter trend-keennii. Hadduu inoo jabiyo waa arkaynaa fursadda waa soo dhigaynaa telegramkana waa soo dhigaynaa. Resultigeedana berri oo jimco ah iyo wixii ka dambeeyaba lacagtaani meesha ku dambeyso waa isla ogaan doonaa insha Allah. Waaya resultigeedana berri iyo wixii ka dambeeya waa isla ogaan doonaa insha Allah. Marka lacagaha kale inta badan oo Euro USD baan ka trade garayaa, iyadaan u badanahay, iyadaan mar walba daba socdaa, iyadaan lacagaha kale inta badan lacagaha kale aan iyaguna isticmaalo waxaa ka mid ah aan idin sheego GBP USD iyo GBP CAD USD CHF USD CAD intaasaan isticmaalaa. USD CHF USD CAD GBP USD GBP CAD iyo Euro USD. Waa shantaa lacagood shantaa beer baan garaacaa. Kuwa aan ugu badnahayna waa GBP USD Euro USD. Weliba Euro USD kama kaftamo beerkaan ka tumaa dhinacay u dhaqaaqdaba waa la daba ordaa ma garatay. Marka saaxiibayaal guul baan idin rajaynayaa. Dadaal badan sameeya. YouTube-ka subscribe saarta casharo badan baan soo dhigayaa oo free ah. Istiraatiijiyadda oo bit rules-keeda aan kala qaadqaadayo ayaan soo dhigi doonaa. Waxaan soo dhigi doonaa casharo bias ah. Waxaan soo dhigi doonaa live trade anagoo live trade garaynayna. Waxaan soo dhigi doonaa wax badan marka channel-ka subscribe garaysta idinka iskale waa free. Waxa weeye waa aqoontiyo tusoo itaabsiya. Sidoo kale telegramka description-ka yaalana kusoo biira isagana wax badan casharo koorsooyin diyaarsan ayaan soo wadnaa oo free ku durduuro baa la yiraahdaa. Iyagana aad ka faa'iideysan doontaan insha Allah tacaala. Sanadkan 2025 waa sanadkaagii waa sanadkeennii. Guul baa inoo ballan insha Allah. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.